الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركل كسو دوادا مقالدة تحنها أها oo ku saabsanaa maadada Ingiriiska gaar ahaan grade sideedaad muuqaaladii hore waxa kaga soo jawaabnay waxqabadyada koowaad ilaa 13aad muuqaalka marka waxa kaga jawaabaynaa waxqabadka 14aad oo ku saabsan adjectives sifooyin kuna qoran page-ka 15aad su'aasha marka waxay dhahaysaa form adjectives sifooyin kadig ama ka samee from these nouns magacyadan use a dictionary waliba adigoo isticmaalaysid eray bixiye ama qaamuus example marka kan u horeeya asaga kaaga shaqeynaayo wuxuu rabaa marka numberska kale oo ku xigo in adiga aad ka shaqeysid dhinacaas marka bidixda ah waxa ku qoran wordkii dhanka kale ee midigtana waxa ku qoran adjective-kii laga rabay inaad ka sameeysid ama aad ka dhigtid ereyga lagu siin doono ereyga koowaad marka waa west micnaheeda waa galbeed haddii marka laga dhigo adjective ama sifo wuxuu noqonaa western waa xagga galbeed haddii aan la fasiro west waa galbeed oo wordkii waaye haddii adjective laga dhigo ama tilmaam laga dhigana waxay noqonaysaa western oo ah xagga galbeed marka kaas asaga kaga jawaabay numberka koowaad numberka labaad iyo numbers kale ku xigo ayaa laga rabaa inaad isku daydo marka number 2 waa south micnaheeda waa koonfur haddii adjective la geliyo ama laga dhigo south oo koonfur ah wuxuu noqonaa southern oo ah koonfureed ama xagga koonfureed numberka ku sii xigo saddexaad waa bubble micnaheedu waa xumbo haddii laga dhigo adjective ama sifo waxay noqonaysaa way badanaysaa adjective-ka bubble wuxuu noqon karaa blue wuxuu noqon karaa bright wuxuu noqon karaa clear inta uu noqon karaa iyo kuwa kala badan marka haddii bubble laga dhigo adjective waxay noqonaysaa blue oo buluug ah colorkii buluuga bright oo ah mid ifaayo iyo clear oo ah mid yacni cad ama waadix haddii bubble marka laga dhigo intaas way noqon kartaa number 4 restoration waa dib u soo celin waa magac haddii adjective laga dhigo waxay noqonaysaa restorable dib loo soo celin karo number 5 respiration waa neefsi haddii laga dhigo adjective waxay noqonaysaa respiratory ee neefsiga ama neefsiga la xiriira numberka 6 width waa balaar ama balac width waa balaar haddii laga dhigo adjective ama sifo waxay noqonaysaa wide oo ah balaaran marka width waa balaar wide-na waa balaaran oo adjective ama sifo ah numberka 7 wife waa xaas wife micnaheedu waa xaas haddii laga dhigo adjective ama sifo waxay noqonaysaa wifely xaas ahaansho number ku sii xigo sideedaad waa darkness oo ah mugdi haddii adjective laga dhigo ama sifo laga dhigo waxay noqonaysaa dark oo ah mugdi ah darkness waa mugdi darkna waa mugdi ah numberka 9aad continent waa qaarad haddii laga dhigo adjective waxay noqonaysaa continental oo micnaheedu tahay qaaradeed numberka ku sii xiga ee 10aad waa initiation bilaabid haddii adjective laga dhigo wuxuu noqonaa initiative hindise numberka 11aad
waa decision go'aan. decision go'aan waa magac. haddii adjective laga dhigo ama tilmaam laga dhigo waxay noqonaysaa decisive go'aan leh. decisive go'aan leh. nambarka 12aad waa freedom. freedom waa xurriyad. freedom xurriyad. haddii adjective laga dhigo ama tilmaame laga dhigo waxay noqonaysaa free. free oo ah xor ah. free waa xor ah. nambarka ku sii xigo 13aad silence. silence waa aamusnaan. aamusnaan. haddii laga dhigo tilmaan ama sifo waxay noqonaysaa silent aamusan. silence waa aamusnaan. silentina waa aamusan. aamusan marka adjective waa silent. nambarka 14aad connection waa xiriir. connection waa xiriir micnaheeda. haddii adjective laga dhigo waxay noqonaysaa connective xiriiriye. connective xiriiriye. nambarka 15aad description waa caddayn. description caddayn ama sharaxaad. kan ku sii xigo haddii adjective laga dhigo marka description waxay noqonaysaa descriptive caddaysan ama sharaxan. descriptive caddaysan ama sharaxan. halkaas ayaa kusoo gabagabeynaynaa waxqabadka ama activity-ga 13aad oo kuwii hor u noqonaya kan 13aad. haddii ay tahay marka kugu horeysay ee aad soo booqato janaalka waxaa kaa dalbanaynaa inaad nagu soo biirto aad subscribe dhahato. haddii hore subscribe ay kugu ahaydna inaa muuqaalka like garayso sharena garayso. waa mahadsan tahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.